maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyinka dunida ugu yaabka badan. Kul haddaad ku cusub tahay subscribe inoo sar. Dhacdooyinka dunida ugu yaabka badan. Tuulo ku taala gobolka Haiti ee koonfurta Turkiga ayaa waxaa ku nool qoys sida xayawaanka oo kale ku socda lugaha iyo gacmaha. 2005 ayaa khuburo heleen ay sameeyeen baaritaano la xiriira sababta ay qoyskani ay lugaha iyo gacmaha ugu wada socdaan. Qoyskani ayaa ka kooban 7 qof oo ay ka mid yihiin waalidka carruurta dhalay, 3 gabdhood iyo 2 wiil ayaa ku nool tuulo yar oo ay ku nool yihiin dad iska dan yar ah. Waxaa la yaabka ayaa ah in waalidka carruurta dhalay ay sida dadka caadiga u socdaan oo ay lugaha ku socdaan, hase yeeshee 5 qof ee walaalaha ah ayaa dhammaan ku socda lugaha iyo gacmaha, iyadoo saynisyahanada qaar ay sheegeen in ku dhawaad 5 milyan sano ka hor bini'aadamka uu ku socon jiray lugaha iyo gacmaha. Hase yeeshee yaab ayay ku noqotay in malaayiin sano kadib la helo dad ku socda lugaha iyo gacmaha. Baaritaano dheer oo caafimaad kadib waxa ay dhaqaatiirta iyo saynisyahanada isku khilaafeen arrintani. Dhaqaatiirta ayaa ku doodaya in arrintan ay la xiriirto dhaawac xooggan oo maskaxda ah saameysay carruurta, iyadoo saynisyahanada ay ku doodayaan in arrintani ay tahay dhaxal iman kara dhowr malaayiin sano kadib. saaxiibayaal, haddaad nagu cusubtahay nagu soo bir, subscribe inoo sar YouTube-ka, page-keena follow dheh.